برنامج كان waxaan rabaa inaan laba erey ka iraado inaan gelin maaragtay sheekeen dadka hadlaaya ama ugu gudbin waxaan rabaa marka hore inaan isweydiino horta barnaamijkan sababta u qaban qaabinay maxay tahay su'aal weyn waa meesha ku jirta iyo ahmiyadda maaragtay laga leeyahay ujeedada laga leeyahay kulankan muxuu yahay sababta keentay shirkan waxa weeye marka hore waxa weeye shacabka Soomaaliyeed oo aan u midaysnayn dantooda guud taas oo runtii aad iyo aad ummadda Soomaaliyeed ay ula socdaan aad iyo aad noo dhibaysan runtii in ummadda Soomaaliyeed ayagoo midaysan ayna u dhaqaaqeen dantooda guud oo loo kala jeediyo ummadda Soomaaliyeed dana gaar ah danahaas gaarka ah ama mid goboleed ama mid qabiil ama mid diineed loo kala leexiyo ummadda hadana ciidan baa ilaalinaya oo lagu leeyahay askari baa madaxweynihii dharbaaxay ama askari baa jaran hebel oo meel fadhiya baa taladii haya oo sheekh shariif gacanta wuxuu uga jirto oo cabdulays watay nuugin oo cabdiqaad cidul buu nuugin oo ciidankii shisheeyay ma waxa aniga aan ka amar qaataba waxa inuu haduu ciidan sheegay talada guud anigu salaamaya salaanka baadigeen waa yaabana shir walba iyo meel kasta oo la tago waa daliil baa jirta daliishii maxaa loo waayay in يعني أي واحد كسر بحان وحركة مصر بحيان هالكيدي جوب يسال تكتب ما يسال جوب واعي أنا واعي لو سرح دالبوبة دالبوبة أنا هيرو سناي دالبوبة دالبوبة أنا هيرو مدايتي مورجالي أنا هيرو سنة دلكي هيرو سنة يسيري أبوتر هوغاني dadii waxaan ka tabuuray labiyadii waxaan ka yeelay shucuur iyo qabiila si aad suuq aqoonsataan ruuxina ugu sharafta badan ee baagtiisa waa kan idinku dhawaanshaha badan ee ban wax walba og yahay waa maxay qabiil qabiilku waa koox bulsheed ka kooban qoys iyo jilbiyo waxaad garanaysaa wixii niyadda ku jiray oo ah in wanaag la sameeyo ay dhalinyaradaani soo bandhigeen runtii markaan aragnay warqadii ay soo bandhigeen annaga xitaa waxaan isku daynay inaan dadka kala qaybino ayuu weyneeyaa oo dhibku sii zaaidiya non interventionka wuxuu arrinta ka dhigaa localize haddii Soomaaliya maanta aan intervention lagu sameyn lahayn oo Ethiopia wadamada jaarka ah Europeanska iyo Mareykanka aysan faragelin ku sameyn lahayn arrinku wuxuu ahaa lahaa uu joogi lahaa localize mar hadduu yahayna xal baa Soomaaliya dadka Soomaaliyeed dantooda guud waayo annaga maanta awood inaan isku imaan oo tashano dadka Soomaaliya jooga waa la kala qaybiyey kooxda meel baa lagu haystaa dad waxay cunaan leeyihiin kuwa waxaa waaye ammaanka ma haystaan annaga awood inaan shirno isku imaano marka annaga naloo baahan yahay waajibka aan qaadno in Soomaaliya badbaadiyo haddaan nahay diaspora walaalayaal gabagabadii dalkeen waxaa loogu yeeraa dal fashilmay failed state ayaa loogu yeeraa laakiin waa been maaha failed state maaha dal fashilmay dalkeen wuxuu ku jiraa marxalad colaadeed in dalku galo marxalad colaadana micnaheeda ma ahan inuu fashilmay dowlado badan ayaa noogu horreeyay colaada oo ku jira muddo ka badan muddada anaga ku jirno kuwaasoo maanta aan dowlado looga daydo hanaanka dowladeed kan siyaasadeed iyo midka dhaqaaleentaba waxay iska xoreeyeen dictatoriyad gumaysi khilaaf diineed mid qabiil midabta koor kala qaybsanaan iyo caqabado intaa ka waaweyn oo maaragtay halis ku ah jiritaan bulsho annagu waxaan iska xoreynayna qabyaaladii kooxaysa diineed taas fashilaad maaha laakiin halkana ku jira laakiin waxaa fashilaad ah ilaahay ha naga hayo inaan danteena guud waxaa fashilaad ah inaan qabyaaladii kooxaysiga deencilin tiri weyno oo u mideegu weyna danteena guud oo dhibta iyo colaadku sii socota ilaa kala Soomaaliyeed oo taa fashilaad taa ayaa fashilaad
laakiin fashiraad maahan inaan maaragtay maanta halka inaan ku jirno oo maaragtay caqabada hor yaalaan kooxaysi diinad iyo qabyaalad fashiraad maaha iyo inaan 20 sano dowladaan ahay laakiin waxaa fashiraad inaan ku guuldareysano inaan arrinta wax ka qabano